digtoona udabulaaqay noqote wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay ka digtoona udabulaaqay noqote cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoona dad bulaaqay noqote dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoona dad bulaaqay noqote cabdulqaadir cabdi oo ay ciidanka booliiska magaalada Ottawa ay ku dileen kadib markay isku dayeen inay marxuumka Allah u naxariisto ay qabtaan arintu ilaa hadda waxay ku jirtaa gacanta booliiska booliiskuna waxa uu isku dayayaa inuu arintaas oo investigation ay ku jirto ama baaritaan hadda laakiin maanta waa maalintii labaad ee aanu ka soo qayb galnay arintan iyada si hore oo weydeen intii shalay tola daawatay waxaan ka qayb galnay aaskii Allah u naxariisto marxuum cabdiraxmaan cabdi hadda waa mudaharaad aad u weyn oo aan loo kala hadhin Soomaali ajnabi waana mudaharaadkii ugu weynaa intaan ognahay ka dhacay magaalada Ottawa dadka oo waxay ku doodayaan hadallo ah no justice no peace bal nala daawada dhageystayaasha ama daawadayaasha qiimaha qaayalaha dadkan faraha badan ee ka soo qayb galay mudaharaadkan oo mudaharaad runtii aad iyo aad u weyn waxay loo ku marayaan magaalada mudaharaad waxay aad iskaaya ayaguna waxay isku dayayaan inay xagga nabadgelyada ilaaliyaan inkastoo ayagu ay dadkii baday ay dadku ay aad iyo aad uga soo horjeedaan haddana waxa mar walba aan leenahay booliisku madaxuma qaar fiican iyo qaar xun ay ku jiraan marka inta xun insha Allah waa laga dhex qaban doonaa maadaama aan wadankan uga baran wax dhibaato hore u dhacay qiimaha iyo qaayaha mudanow saad aragtaan waa mudaharaad aad u ballaaran waad u jeedaa ilaa inta socodka dheer ay dadku ku soo marayaan runtii
waa mudaharaadkii ugu weynaa ee aan intaan magaalada Ottawa joogay aan ka qayb galo oo ahaa mudaharaad aad u weyn waad aragtaa dad aad iyo aad u fara badan ayaa mudaharaadkan oo isugu jira Soomaali dadka waddankan u dhashay Kanadiyaanka inkastoo Soomaalida lafteedu ay hadda saad u aragtaba muddo waxaan haddaad historyga Soomaalida waddankan aad u fiirsato muddo aad u fara badan ayay waddankan ku noolaayeen oo ilaa imika haddii lagu qaaso 27 sannadooda markaa dee inta ku dhalan gaadhay iyo inta ku dhalatay iyo intii anigaygana xitaa kula hadlayaa waxaan anoo aad u da'yar baan imi intii aan waddankan ku noolay waxaad arkaysaa dad badan oo naga dambeeyey oo ma carruura ku dhalaan ama dee carruurtii ku dhalatay baa carruur sii dhashay marka waa arrin aad iyo aad cajaa'ib u ah waad aragtaa hadda baabuurta halkan soo socota booliiska ayaa waxay ka socdaan xagga hore iyo xagga dambeba ayagoo markaasi trying inay nabadgelyada ilaaliyaan jidkiina waa loo xidhay waad aragtaa ciidanka booliiska oo ayaguna dadkii mudaharaadka waday daba socda waad aragtaa dad badan oo hadda biyaha dadka loo qaybinayaa oo ay maanta maalin ay aad iyo aad u kulul weeyaan marka goobo ama meelo intaay dadku lugeynayaan dad baa ayagu isxilqaamay oo waxay samaynayaan marka waxoogaa socdaanba biyo uga tegayaan oo dadka biyaha la siinayaan marka waad aragtaa inaan mudaharaadku aan mid yacni aan lagu kala qaybsanayn oo Soomaali waddanka dadkan u dhashay caddaanka hadday yihiin dadka kale madowga iyaguna waddankan ku nool hadday yihiin aad iyo aad buu dadku fara badan yahay marka waxaanu insha Allah waxaanu eegi doonaa bal halka arrintan ku biyo shubato iyo waxaanu u raadinaa ninkii Allah u naarista Cabdiraxmaan Cabdi siduu maaragtay justice ama uu sharci u heli lahaa oo yani nimankii dhibka geystay maxkamad loo saaro oo sharciga la marin lahaa assalaamu calaykum xusud mudan dadka waddankan u dhashay oo iyagu aad iyo aad ugu maaragtay maadaama Soomaalida lafteeda dee asal ahaan dee Soomaaliya dadka badan ka soo jeeda ama aduu dhulkii Soomaaliya la odhan jiray laakiin waxa weeye haddana waxaa jirta dee dad badan oo halkan ku dhashay oon Soomaalida ama Soomaaliya waxba ka aqoonin ama dhulkii Soomaalida meel ay ka yimaadeenba aan garanahayn oo dad fara badan oo dee inay dee aabayaashood iyo hooyooyinkood ka maqlaan mooye yani dee meeshan ku dhashay marka si aad iyo aad ayaa looga soo qudhositaan oo waxay saan ka dhanansada waxay ilaalinayaan inay yani haddii dhibaato dhacda ay dadka dhibka geysanaya oo qaban lahaayeen ama maaragtay waad u jeedaa ayagu run ahaantii waa dad aad iyo aad u fara badan waad aragtaa ilaa hadda dadku istaba socdaan
waad aragtaa xitaa baabuur ay dadku soo kaxaysteen si biyo dadka ugu qadan maadaama ay maanta maalin aad u waxaanu finally ay socod dheer oo ay dadku soo galeen waxa la isugu yimid xarunta booliiska ee magaalada tan Ottawa halkaas dadku socodkooda ay aad iyo aad u dheeraa ay meel dheer ka soo bilaabeen hadda waxa la isugu yimid xarunta booliiska Elgin Street halkaas oo meesha laga maamulo booliiska magaalada tan Ottawa waxaad aragtaan dadku hortiisa wali maalin aad u kulway laakiin haddana still waxa way dadku aad u kul oo summer time maalinta ama xilli summer weeye laakiin waxaad aragtaa dadku inay maalin aad u kul laakiin waxaad aragtaa
ilaa hadda dadku socod dheer ay soo galeen kabacdi waxaa la isugu yimi xarunta booliiska halkaasoo ay dadku tusayaan siday uga xun yihiin waad aragtaa dadku aad buu u badan yahay socodkii adugu wax la soo socdo waxaa la isugu yimi xaruntii booliiska outside to this like closer to the middle area where I can see. waxaa iminkana aad silent ama waa si loogu marxuumka alla u naxariistay loogu qadarinaya dadku waxaa la yidhi hala aamuso ilaa 1 minute. Okay, asalaamu calaykum. The Black
We want to express our deepest and most sincere condolences to the family and